رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. walaalayaal, weli waxaanu ku dhex jirnaa silsiladii tixanaha ahayd oo mar walbaba aanu ku soo qaadan jirnay mowduuc gaara si aanu uga faa'iidaysanno bishan ramadaan ee barakaysan. maantay mowduuca aanu ku soo qaadanayno insha allahu tacaala silsiladeennii tixanaha ahayd waa mowduuca la yidhaaho fiqhu siyaam ama axkaamu siyaam, soomka iyo fiqhigiisa. waxaanu ka hadli doonaa insha allahu tacaala soomku cidda uu ku waajibo iyo shuruudda uu ku waajibayo, waxyaalaha nawaaqidu siyaam ah ee soomka buriya, iyo dadka qadaha lagu leeyahay iyo dadka qaarkood oo lagu leeyahay qadaha iyo inay fidye ay iska bixiyaan. soomka walaalayaal, guud ahaan waxaa la farad yeelay sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah ayaa soomka la waajib yeelay. 13 sano oo nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi magaalada maka almukarama uu diinta ku faafinayay ma jirin ramadaan waajib ah. ramadaan waajib ma jirin. markii madiine uu u soo wareegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sanadkii hore oo ugu horreeyey caamul hijri, wax ramadaana oo waajibuhu ma jirin. sanadkii labaad ayaa la farad yeelay ramadaanka oo la waajib yeelay taariikha hijriga ah. waa taariikha hadda aanu ka marayno 1437 sano ayaanu maraynaa taariikha hijriga ah. 1437 markii laba laga jaro 1435 sano ayaa soo hartay, ayaa intaas ayaa ramadaanku horta uu waajib yahay. nabigeena marka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu soomay 9 ramadaan ayuu soomay rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. kabacdina ilaahay ayaa oofsaday rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh. haddaba mowduucan aanu ka hadlayno walaalayaal waa mowduuc aad qof walba ee muslim ah iyo gabar kasta ee muslimad ah ahmiyad weyn uu u leeyahay. waxaana laga maarmaana dhammaanteen inaannu mutaabacayno oo mowduucan aanu dhegaysanno. maxaa yeelay qofku hadduu alla jahli ku caabudo, waxa weeye dhididkii iyo daalkiina wuu ka dhammaaday. waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalayo oo acmaashiisa ah ma jiraan. waxaa laga yaabaa qofku inuu isku hallaynayay salaado fara badan iyo soom fara badan iyo xaj fara badan, inuu islahaa qabrigaaga iyo qiyaamaha waad ugu tegi doontaa iyagoo ku anfacaya. haddana wixii haddii aan cilmi aysan ku dhisnayna waxaa dhici karta siduu filayay si ka duwan oo naxdin iyo amakaag leh inuu aakhiro kala kulmo la yidhaaho waxaad samaynaysoo dhan waa hal bacaad lagu lisay oo lagama aqbalin. sababtu maxay tahay? shuruuddii iyo arkaantii loo dejiyey cibaadadan iyo habkii uu sharcigu ugu talagalay ma aadan soo marin. maxaa yeelay wax walba alle subxaanahu wa tacaala wuu habeeyey, wuu nidaamiyey habka loo caabudayo iyo dariiqa ilaahay ridihiisa lagu gaaro subxaanahu wa tacaala. shuruuduu ilaahay u xiraya arkaan iyo waajibaad. sidaas awgeed cibaadadaadu haddii 10 sano iyo 100 sano aad iska wadid laakiin cilmi aysan ku dhisnayn laga aqbali maayo. taana waxaa daliil u ah oo tusinaya xadiiskii imaamul bayhaqi iyo imaam axmed labadooduba ay warinayeen min xadiisi xudayfata bni alyamaan
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيهقي وحو سنن كيسا كوريي صحابي اللي راهو حذيفة بن اليمان أيا إساقو ميل فردية أو مسجد كفردية أيا نن أكتيسا كتو كذي صحابي وفيريي نن كان يسيدو أتو كنايي وحو أركي صحابي غاني قاب كان نن كان أتو كنايو إن يعني شرعي إسلامك أو خلاف سنيهي أو أركانتي لقد دونا يقفك مسلمكو إنو دميسترو صلاة ديسا inay wax ka maqan yihiin oo salaadu ay ka jaban tahay ayuu saxaabigeena arkay oo uu dareemay uu u yeeray wuxuu yiri kaale wuxuu yiri mata kam tusalli mithla hadhihi as-salah salaadan imisa sanad qaabkan u tukanays imisa sano qaabkan hadda aan kugu arkayay oo aan toosnayn oo salaadu ay ka jaban tahay imisa sanad salaadan qaabkan u tukanaysay buu markaasuu wuxuu yiri salaadan ilaa 40 sano ayaan habkan ku waday buu 40 sano qaabkan aan u tukanayo markaasuu wuxuu ku yiri Xudayfa ibn al-Yaman law mutta ala ghayri sunnati Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi haddaad sidan ku dhiman lahayd uu yiri waxaad ku dhiman lahayd jidkii nabi Muhammad jid khilaafsan jidkii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam jid khilaafsan oo baatil ah oo ilaahay aad uga fogaanaysid oo naar aad ku galaysid ayaad ku dhiman lahayd buu yiri saan haddaad salaada ku sii wadi lahayd ilaa aad ka dhimato marka ilaahay subxaanahu wa tacaala saxaabigan uu tusay ninkan laakiin ninkan hadduu sidaa ku tukan lahaa yacni ilaa uu ka dhinto salaadiisa waxay noqon lahayd salaad uu naar uu ku mutaysanayo iska daa inuu ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa uu ku gaaro haddaba marka waxaa la mid ah cibaado kasta noocaas haddaad soomi jirtay 40 sano iyo 50 sano iyo 60 sano laakiin habkii sharciga iyo fiqhigii siyaamka loogu talagalay aadan ku soomi jirin mutta ala ghayri sunnati Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaad ogaataa inaad ku dhimanayso jidkii nabi Muhammad jid khilaafsan haddaba sidaas mawduuceenu muhiim u yahay si aanu ugu dhimanno cibaadadeeduna ay u waafaqdo hadigii iyo jidkii uu jeexay nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi sidaas ayaa marka mawduuceenani ahmiyad gaar ah uu u leeyahay soomku marka wuxuu soo maray walaalayaal maraaxil kala duwan ayaa soomku soo maray habkan inagu hadda aanu u soomayno waxa jiray islaamka bilowgiisii hab ka adag inay asxaabtu ay u soomi jireen laakiin ka bacdi la nasakhay oo xukumkii la fududeeyay maadaama la arkay dhibaato aad u baaxad weyn in saxaabadu ay kala kulmeen habkan loo soomayo waxa imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala saxiixiisa uu ku warinayo in qaabka markii hore loo soomi jiray uu yahay qofku haduuba seexdo oo uu hurdo ama salaada cishaha uu tukado ka bacdi inay xaraam tahay inuu wax cuno wax cabo xaaskiisa uu yacni la jiifto xaaskiisa uu isticmaalo waxyaalaha qofka sooman ka xaraam ahaan jiray oo dhan ayaa xaraam ka ahaan jiray salaada cishaha ka bacdi ama qofku hadduu seexdo labadaas midkii u soo hormara sidaas awgeed imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wuxuu saxiixiisa uu ku sheegay nin saxaabada kamid ah ayaa wuxuu u yimid beeraley uu ahaa ninkaasi marka beertii ayuu maanta oo dhan qodayay wuuna soomanaa beertuu ka shaqaynay gurigiisuu yimid gurigiisa markuu yimid ayaa hurda ay la tagtay intuu isiri iskala bixi ayaa hurda ay la tagtay islaantii intay cashada u soo karinaysay waaba hurdayba islaantii way u timid iyadoo cashadii u soo diyaarisay markaasay toosisay markaasay ku tiri oo ma hurday waan hurday yiri mar haddaad hurday waxay tiri sida habka soomku hadda uu yaalo waa ka xaraam cunto iyo cabitaan oo dhan waa ka xaraam ninkii saxaabiga ahaa soomkiisii uu iska sii watay beertiisii uu haddana u laabtay wuu mir daboolmay meel uu isaga dhacay ka bacdi Allah subxaanahu wa ta'ala maadaama dhibaatada iyo rafaadkan lagu jiro saxaabadii Allah uu dareemay subxaanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu soo dejiyay qowlkiisa uu yiri jalla sha'nu وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إلهي سبحانه وتعالى وحور اسكعنا واسكعب إلى لقى قاريه واق وكبريه
oo salaada subax oo ay ka dhalanayso iska cuna oo iska cabba yacni wixii u bannaanaan jiray qof aan soomanayn oo dhan ayaa habeenkii oo dhan idin bannaan sidaasaa marka alle subxaanahu wa tacaala uu soomka uu uga fududeeyey habkii iyo nidaamkii markii hore soomku uu ahaan jiray haddaba waxaa jira walaalayaal soomka shuruud yuu ku waajibaa horta soomku horta yuu ku waajibaa kow soomku wuxuu ku waajibaa awalan shardiga ugu horeeya horta qofku waa inuu yahay qof muslim ah qof muslima inuu yahay waa shardi qofka gaalka ah gaalka ugama bilaabayno soom laakiin waxaanu ku bilaabaynaa marka hore horta tawxiidka soo galo xerada islaamka soo gal ayaanu leenahay marka qofka gaalka ah soomka waa loo ciqaabi aakhiro markuu dhinto gaalka waa loo cadaabi laakiin hadda waxaa ka horeeya tawxiidka waxaa kaloo shardiga qofka soom ku waajibayo an yakuuna baaliqan waa inuu qaangaar yahay hadduu qofku carruur yahay oo uu weli uusan qaangaarin soomku waajib kuma aha waxaa kaloo shardiga an yakuuna caaqilan qofku waa inuu caqli leeyahay qof qaangaar ahoo weyn oo waxaa jira iska waalan oo miirkii iyo maskaxdii xaddu takliif ama manaadu takliif waxa shareecaduba qofka ay kala khidaabto ama ay kala hadasho waa caqliga caqligii takliifku uu ku xirnaa hadduu qofku waayo oo uu iska waalan yahay soomku waxba waajib kuma aha sidaas awgeed dadka waalwaalan ee yacni guryaha qaarkood jooga ama magaalada maraya wax ku waajibaya male laa qadaa walaa fidya inuu hadhow haddii ilaahay maskaxdiisa u soo celiyana yacni lagama rabo wax qada ah wax raashina oo ku waajibahayaana ma jiraan waxaa kaloo shardi ah an yakuuna qaadiran cala asawm qofku waa inuu soomka awood u leeyahay waxaa jira qof maskaxdiisu joogto oo yacni haddana qaangaar ah laakiin soomkii aan awood u lahayn cudurdaar jira awgeed oo awoodda waxaa weeye isagaan awood u lahayn ama sharcigii markii loo fiiriyo jaanibka sharciga ayuusanba awood u lahayn maalan qofkii tusaale waa iska xanuunsan yahay qofka hadduu iska xanuunsan yahay soomku waajib kuma aha haddii sidaas oo kale musaafir uu yahay qofka oo mashaqada safarka iyo dhibaatada uu dareemayo dhibaato safar isagana soomku waajib kuma aha laakiin waanu ka hadli doonaa qofka xanuunsan xanuunkiisa waxaa loo kala qaadi laba arrimood xanuunkiisu inuu yahay xanuun dhakhaatiirtu ay ka dayriyeen oo la yidhi xanuunkani lagama bogsado xanuunkan lagama bogsado la yidhi tusaale ahaan qofkii kaankaraa ka galay caloosha ama wuxuu ka galay yacni dhuuntuu ka galay hunguriguu ka galay meelaha halis ahaa kaankara uu ka galay ama waa qof lambarka yacni xanuunkan la yidhaaho sankarowgu lambarkiisu uu ku weynaaday oo awood aan u lahayn inuu soomo xanuunkan sonkortana lagama raysto sida dhakhaatiirtu ay sheegaan ilaahay laakiin subxaanahu wa tacaala awooddiisa iyo karamkiisa iyo fadligiisa wax walbuu alla awoodaa subxaanahu wa tacaala haddii xanuunada noocaas oo kale ah oo dhakhaatiirtu ay leeyihiin qofkani daawoba ma lahan bixasabi cuquulihim wa bixasabi maa aataahum allahu subxaanahu wa tacaala min alcilmi alqaliil waxa cuquushooda iyo caqligooda iyo cilmiga ilaahay uu siiyey markay cabiraan ay dhakhaatiirtu sheegaan qofkani in cudurkan uusan ka bogsanaynin qofkaasi waxaa laga bixinayaa raashin oo maalin walba waxaa laga bixinayaa hal koombo waa koombadan ay ku qoran tahay c b c ay ku qoran tahay halkaa koombo raashina ama ha noqoto digir ama galley ama bariis ama qamadi ama sarreyn yacni raashinkana waxaa loo baahan yahay inuu noqdo raashin aan shiidnayn alxabu saliim ayaa laga bixinaya sida gadaalba aanu ku sharxi doonno in sha allahu tacaala qofka haddii cudur sharciyuhu uu yacni ku istaago sidaas oo kale soomka isaguna waajib kuma aha tusaale ahaan haweenaydii waa qof yacni xaa'ido ah oo dhinkay xaydkaa ka yimi xaydaa ka socda ama waa qof nufaso ahoo umulay ku jirtaa gabadha iyadana soomku waajib kuma aha laakiin labadaba waxaa waajib ku noqonaya inay dib ka soo qadayaan oo markuu dhiiggu ay ka qubaysato ayaa waajib ku noqonaya inay soo qadayaan sida gadaal aanu ka ogaan doonno oo aanu ku faahfaahin doonno in sha allahu tacaala waxaa marka muhim ah inaannu ogaanno mar walbaba oo axkaamta soomka ka mid ah
soomka wuxuu iska leeyahay yacni waxyaalo lagama maarmaan ah oo inaad samayso mar walbaba ay muhim tahay. haddaadan samayna soomkaagu uusan ansaxaynin. kow waxaa ugu horeeya anniya. soomka haddaadan niyeysan wax ku ansaxayahay ma jiraan. niyadaas weliba waxaa loo baahan yahay habeen kasta waa niya mutakarrira fii kulli laylatin min layaali ramadaan. habeen kasta oo habeenada ramadaanka ka mid a waa inaad niyeysato ramadaan berri inaad soomi doontid. habeenkii kale markaad gaartay haddana waa inaad niyeysato. haddaad niyadii haddaad halmaanto tusaale ahaan oo aadanba niyeysanba berri inaad soomto, niyadii qalbiga kuma aadan qabanin berri inaad soomi doonto, haddii markaa waxaa waajib kugu noqonaya wax loo yaqaano al-imsaak. imsaak maxay tahay? sidii qof sooman oo kale dhaqankiisa inaad u dhaqanto. waxna ma cuni kartid, waxna ma cabi kartid, xaaskaaga uma tegi kartid. qof sooman oo kale ayaad xagga sharciga aad ka tahay, mana soomanid oo soomkii dee niyadii ayaa kaa maqan oo ahayd yacni rugni asaasiya ahaa. maalintaasna waxaa waajib kugu noqonaya niyada aad halmaantay inaad dib ka soo qadayso. taasna waxaa tusinaya xadiiskii abu daawuud iyo tirmidi labadooduba ay warinayeen oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu ku yidhi man lam yujmic qabla alfajri falaa siyaama lah. salaada fajarka ka hor, salaada subax intaysan dhalanin ka hor, qofkii aan niyeysan soomka inuu berri soomi doono aan niyeysan wax soomo ka ansaxaya ma lahan uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam. xadiiska abu daawuud iyo tirmidi labadooduba waxay ku wariyeen sunanka ayay ku wariyeen. sidaas awgeed niyadu waa laga maarmaan. haddii qofku uusan niyeysanin oo soomkii inuu berri soomi doono uusan niyeysanin, dadka qaarkood waxaanu aragnay inay niyada ay iska fududaysanayaan oo waxa niyo la yidhaha habeen walba in la niyeysto soomka aysanba la socanba. waxay la mid tahay xadiiskii xudayfa binulyamaan ninkii agtiisa salaada ku tukanayay oo dhahaya 40 sanaan salaada tukanayay, saxaabiguna uu ku yidhi saa haddaad ku dhiman lahayd jid khaldan oo jidkii nabiga khilaafsan ayaad ku dhiman lahayd sala allahu wasalam wabaaraka calayh. marka niyada nafteeda waxaa shardi ah an takuuna jaazima. niyadu waa inay tahay niyo labac iyo shaki waa inuusan kaaga jirin. haddii niyadu shaki uu kaaga jiro dee go-aan ma qaadan kartid. haddaadan go-aan qaadan niyadaadu ma ansaxayso. niyadu haddaysan ansixinna soomkaaga ayaan ansixin. tusaale ahaan qofku habeenkii shacbaan uu 30 ahaa ayuu wuxuu ku shakiyey berri tolow ramadaan bilowgiisii miya mise waa 30 buuxadii shacbaan ayuu ku shakiyey berri. markaasuu wuxuu qalbiga ka niyeystay kolley waxaan niyeystay buu yidhi hadday ramadaan noqotana inaan soomo, haddaysan ramadaan noqonna oo shacbaan dhammaystirkiisa ay noqotana haddee maba soomayo. markaa saasuu habeenkii uu ku jiiftay. niyadaa go-aanka jaasimada aan ahayn ayuu ku jiiftay. biqudratillaahi berridii ramadaanayba noqotay, waxba kama jiraan qofkaa soomkiisa. laakiin waxaa ku waajibaya imsaak xurmatan lishahri ramadaan. si bisha ramadaan loo xushmeeyo waa inuu afaysto oo cunto iyo cabitaan iyo waxba ma samayn karo. maalintaana inuu dib ka soo qadeeyo ayaa waajiba. limaada? maxaa dhacay? niyadii jaazima ma aha, ma go-na. niyadii niya jaazima oo yacni go-aan qofkani uu ku gaaray ma aha. sidaas awgeed waxaan mar walbaba laga maarmaan ah in aan niyada jasmino oo wax shakiya niyadu aysan nooga jirinin. waxaa marka muhima haddana nuqdada kale inaanu dul istaagno ama aanu ogaano ay waajib tahay. soom goormuu bilowda? bidaayatu siyaam. soomku wuxuu bilaabanayaa min طuluuci alfajr wuxuuna ku dhammaadaa guruubu shams. fajarka markuu dhasho bis waxna ma cuni kartid, waxna ma cabi kartid, xaaskaaga uma tegi kartid. waxyaalaha yacni nawaaqidu siyaam oo dhan oo soomka buriyo oo dhan ma taaban kartid waagu yacni salaada subax ama fajarku markuu dhasho.
waxyaalaha aad weydiinta maalmahan ugu batay oo dadku as'ilo ay iga soo weydiiyaan waxaa ka mid ah oo dadka qaarna ay u iftoodaan laakiin fatwo khaldan ah. dadka qaara waxay ku leeyihiin war sheekhow salaadii subaxa ayaa aadaanku nagu dhacay innagoo suxuurtii gacanta kula jirna ama weelkii cabitaankii caanaha annagoo kor u hayna ayaa waagu korkeenna ka dilaacay oo salaadii subaxa ay nagu dhalatay ama aadaankii hore uu nagu yeeray. dadka qaara waxay noo jawaabeen bay yidhaaheen inaannu iska sii dhammaystiran karno raashinka waxa ku jira ama galaaska inta nagu jiro oo cabitaana caano ah inaannu dhammaystiran karno. jawaabtaasi walaalayaal waa khalad. salaada subaxa hadday dhalato wax aad dhadhamin karto ma jiraan, waa kaa xaaraan. maxaa yeelay soomkii ayaa bilowday, soomkii ayaa bilowday. dadka sidaa u iftoonaya, dadka cawaamta ah, waxay ku khaldanmeen xadiis fahamkiis. xadiiskii abu hurayra ee abu daawuud uu sunankiisa ku warinayay ayay si khaldan u fahmeen. xadiiskaasina wuxuu ahaa xadiiskii nabigu uu ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam إidaa samica axadukum الnidaa wاlinaa'u calىa yadih falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatah. wuxuu yidhi rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam qofku hadduu aadaanka maqlo isagoo weelka gacanta ku haya, weelkii yuusan ka tegin ilaa uu ka dhammaystirmo oo weelkii uu ka dhammaystirto xaajadii iyo dantii uu ka lahaa ilaa uu weelka ka gaaro. danta uu ka lahaa weelka maxay tahay? inuu cabitaan yacni cabo, cuntadii inuu inta maaragtay isagu uu ka rabo uu ka cuno ilaa dantiisii uu weelka ka dhammaystirto yuusan weelkii ka tegin. xadiiskaas abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey, waana xadiis abu hurayra uu rasuulka ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalam. haddaba xadiiskaasi wuu jiraa, laakiin xadiiskaas macnaha ama mafhuumka loola jeedaahay muxuu yahay? waxaa noo caddaynaya imaamu اlbayhaqi kitaabkiisa sunanka waxa loola jeedo xadiiskaa. anigu ma rabo inaan ra'yigayga ama maskaxdayda aan ku fasiro. imaamu اlbayhaqi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi markuu xadiiskaa uu kitaabkiisa sunanka ah uu ku wariyey, wuxuu yidhi wahada in saxa maxmuulu cinda cawaami ahli اlcilm calى annahu salى اllahu عalayhi wasalam calima annahu yunaadii qabla طuluuci اlfajr bxayثu yaqacu shurbuhu qubayla طuluuci اlfajr liyakuuna muwaafiqa lxadiiثi caaئisha wabni cumar qaala wacalى hada tattafiqu الأخبار. wuxuu yidhi bayhaqi wuxuu ogaa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam aadaankaasi inuu ahaa aadaankii hore inuu ahaa ayuu rasuulku ogaa salى اllahu عalayhi wasalam. oo mu'adinkaasaa wuxuu addimi jiray yacni fajarka ka hor. maxaa yeele sida la ogsoon yahay xilligii rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam laba mu'adin ayaa masjidka nabigu lahaa salى اllahu عalayhi wasalam. marka mu'adinka hore aadaanka hore markuu ku dhufto weelkiina gacanta uu kugu jiro cuntadii ama cabitaankii iska dhammaystiro wey. maxaa yeele lama gaarin aadaankii kaa joojin lahaa suxuurta. marka aadaanka nabigu uu leeyahay salى اllahu عalayhi wasalam weelkii hadduu gacanta kugu jiro dantaada ka gaar, dantii weelka aad ka lahayd ka gaar uu leeyahay, waa aadaanka hore oo xilligii salaadii subaxba aan la gaarin aadaanka ka hadlaya. amaa aadaanka dambe oo salaadii subaxuba yacni ka tarjumaya inay dhalatay loolama jeedu yidhi xadiiska sida bayhaqi uu yidhi. maxaa yeeley wuxuu yidhi waxaan sidaa ugu fasiraynaa si uu u waafaqo xadiisku xadiiskii caaisha iyo xadiiskii cabdullaahi bni cumar oo uu tilmaamay rasuulku salى اllahu عalayh wasalam aadaanku hadduu yeero inaan waxna la cuni karin waxna la cabbi karin. sidaasayna wuxuu yidhi labada xadiis ay isku waafaqi karaan. marka dadkan ma aysan arkin tafsiirka bayhaqi fii sunanihi uu xadiiska uu ku fasiray. markaasi dadkii waxay u jawaabayaan aadaanka ugu dambeeya salaadii subax oo dhalatay haddii weelkii adoo gacanta kuugu jiro salaadii subaxa lagugu addimo iska dhereg oo iska wada cuntadaadii cabitaankaagii. dee qofkuuba quraacday maxaa soomaho u jira. midda kale fatwadaas waxay ka hor iman, hadalkaas uu ka hor iman naskii qur'aanka oo dhahayay
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر اسكعنا أو اسكعبا إلى فجر كلا جارو أما فجر كهدي لجارو عنت يعبتان مجران مركز تاسنا وإن مر والبابا أنو كبر رجنو وحكلو لوبا هي نقطة كلا أو أن دول استاجنو أن دوني نوحوي فجر كدلا شديسة وين آد لسجاه بيو أو آد لسجد داله dadka hadda sida ay u badan yihiin suxuurta waxay joojiyaan aadaan markay maqlaan oo magaalada Muqdisho aadaanada ka yeera mid kamida markay maqlaan ay rahan bisooy oo waxay ku cabir qaataan aadaanka Muqdisho laga adimayo taasi marka marna qofku aadaanka hadduu cabir ka dhigto marna sax uu ku dhici karaa marna khalad uu ku dhici karaa maxaa yeelay dadka inta badan muadiniinta magaalada Muqdisho salaada subax ka adima intooda badan boqolkiiba 85 waxay adimaan waqtigii salaada fajrku markuu dhashay 10 daqiiqo ama 7 daqiiqo ka bacdi adimaan marka wadaadkanu markuu adinka ku dhufanayo waa maruu fajrkii dhashay 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo ka bacdi markuu fajrku dhashay ka bacdi uu adimaa markuu adimayo fajrkii mar horuba dhashayba maxay la wadaadku markuu adimayo waa markuu fajrku dhashay 5 daqiiqo ka bacdi uu aadaanka ku dhuftaa marka miciyaar ama halbeeg ma noqon karaan aadaamada Muqdisho laga adimo boqolkiiba 85 halbeeg uma noqon karaan suxuurta maxaa la rabaa marka inaad adiga fajrka indhahaaga aad ku ilaashatid maadaama waxaanay waajib yihiin aakhirana lagu la xisaabtamayo fiiri fajrkii inuu dhashay indhahaaga ku fiiri haddii kale saacadahan la yiraahdo saacadan alfajriga oo tajaarib badan laga qaado la tajribeeyay inay saxan tahay saacada soo iibso yani si ay ku hagto oo ay kuugu tilmaanto xilliyada fajrka uu dhalanayo tusaale ahaan hadda ramadaankan hadda anagu aanu ku jirno 1437 taariikha hijriga ramadaankan hadda ku soo beegmay waxa fajrku uu dhashaa 10 saac iyo 29 daqiiqo habeenada qaarna wuxuu dhashaa 10 saac iyo 30 daqiiqo oo habeennimo marka in sida yani aad diqa si daqiiqa aanu isaga ilaalino yani fajrka dhalashadiisa iyo waqtiga suxuurteena ay ku dhacayso waa nuqdo aan rabo inaan isku baraarujino haddii marka shaki uu yimaado mararka qaar waad shakin kartaa mas'alatu shaki maxay noqon tusaale ahaan qofkii waa shakiyay wuxuu yiri fajrkii ma dhashay mise ma dhalan isagoo shakiga qaba ayuu suxuurtay soonkiisi waa u jira hadduu intuu ijtihaaday asagoo shakisan oo suxuurtii cunay maxaa yeelay li'anna al-asla qaacida fiqhiya waxay leedahay li'anna al-asla baqaa'u layl sida asalka ah waxa weeye habeenkii inuu weli yani qaybo ay ka baaqi tahay habeenkii weli qaybo inay ka baaqi tahay ayaa asal ah laakiin hadduu qofku ku shakiyo qoraxda dhicitaankeeda waa mas'alo kale tusaale ahaan qofkii uu afuray asagoo shakisan ayuu afuray oo qoraxdii uu fiiriyay wuxuu u maleeyay qoraxdu inay dhacday markaasuu iska afuray ka bacdiya waxa uu cadaatay qoraxdu inay soo jeedo hada eber way qofkaas li'anna al-asla baqaa'u an-nahar maalina soo socotay Soomaha sida asalku waxa weeye maalintii inay baaqi tahay marka sidaas awgeed hadduu shakiyo oo qoraxda dhicitaankeeda uu ku shakiyo waxa weeye soomkiisii waxba kama jiraan shakigaas hadduuba maragtaahay wax ku cuno marka waxa kale oo muhiim ah nuqdada kale inaanu isku baraarujino mufdiraat as-saa'im qofka sooman maxaa soomku uga buri karaa akbarul muftiraat wa al-jimaac waxyaalaha muftiraadka soomku kaaga buri karo waxa ugu weyn uguna khatarsan jimaaca ama kulanka yani xaaska qofku xaaskiisa uu la kulmo xaaskaaga haddaad u galmooto soomkii horta wuu kaa buri maalintaasna inaad soo qadayso ayaa waajib kugu noqonaysa waxa kale oo waajib kugu noqonaya soomkii markuu kaa buray maalinta inaad dib ka soo qadayso iyo al-kafaratu al-udma kafaara loo yaqaanana waajib ay kugu noqon kafaaradaas waxa weeye
وإن لبا بلود أو حرير أد صومتد لبا بلود أو حريرة إن أد صومتد وواجب صومك هداد أود ويلم ويسو لبا بلود أو حريرة لبا بلود أو حريرة معناه وحوي هدي أد صومتي يعني تسالهان كنتن يو تضوى معلومات أيات صومت سدح معلومات كاغا دمانيد markaas iska joojisay soomkii waad soo bilaabi haddana xiriirka macnihiisu waa sida waxaa la rabaa 2 bilood oo xiriira inaad soomtid maadaama jamaac bil ramadaan xaaskaagii aad u galmootay oo aad la jiifatay haddii aad awood u yeelan weyso soomka oo xanuun ama jiro iyo waxuun ay jiraan waxaa markaa waajib kugu noqonaysa taa badiilkeedii 60 miskiin inaad quudiso miskiin walbana waxaad siinay hal koombo oo raashina waa koombadan ay ku qoran tahay CBC ama loo yaqaano saliid qumbaha koombada ay ka dhamaatay koombadaas aad dhiibi yani miskiin walba hal koombaad siin waa 60 koombo oo 60 miskiin aad kala siinayso ayaa waajib kugu noqonaya waxaa kaloo waajib kugu noqonaya maadaama dambi ay tahay oo amar ilaahay aad jabisay in Allah aad u toobad keento subhanahu wa ta'ala khaladkaas iyo amarka ilaahay aad jabisid ilaahay inaad u toobad keento ilaahay subhanahu wa ta'ala istighfar aad weydiisato mar dambana aad go'aansatid inaadan ficilka foosha xun aadan dib ugu laabanaynin marka fiqiga siyaamka ama ahkaamta soomku walaalayaal aad ayay u fara badan tahay walidaalika waxaanu ka dhigaynaa muhaadaradan xalqadii labaad ama qaybtii labaad ee fiqh waxaan leeyahay qaybtii koowaad ee fiqh siyaam ayaan ka dhigaynaa waxa insha Allah ta'ala hadii ilaahay waqti uu nasiyo oo ilaahay umriga nagu gaarsiyo waxaan noo ballanaa xalqadii labaad ama qaybtii labaad oo fiqh siyaam inaanu mar kale aanu ku kulmi doono hada wa billahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين